ma jiro heshiis inaba halekaatay inaan ogeyn oo hoose oo cidna aan nug la galnay. heshiisku waa kaa cad waxaashida ku qoran. maamulka goboleedku hadduusan waafaqsanayn yani uusan waafaqsanayn dastuurka oo ah laba gobol iyo wixii ka badan, dabcan ma ahaanayo dowlad goboleed, laakiin maamul buu ahaanaya, administration. waxa weye maamul dadka ma subsectan lama oran karo. dadku bulshada meel kasta ku nooli maamul bay u baahan tahay. marka dadka ku nool galgaduud iyo koonfurta mudug waxay u baahan yihin inay maamul samaystaan, isku xukumaan, nidaam ku gaaraan, kala dambeyn ku samaystaan, amnigooda ku ilaaliyaan. kaasaana kulli eegana dan ugu jirtaa, anaga dariskal ahna dan inoogu jirtaa. laakiin dastuurka ayaa soomaaliya ku heshiisay. dastuurkuna wuxuu qorayaa waxaa dowlad goboleed noqon karaa laba gobol iyo wixii ka badan. marka mowqifka puntland waa cad yahay, waana saas weye. dhibtu waxay tahay puntland ma ah, dhibtu waa dowladda federaalka ah. sababtu maxay tahay? de waxa weeye qofkii heshiiska maanta kula galay sanad ka bacdi ma joogo, mid kalaa imaanay. waxay noqonaysaa haddana meeshii laga bilaabo midkii kii cusbaana heshiis la gasho. dhibtu marka waxay noqotay ra-iisul wasaareyaashii ka jiray xukuumadda federaalka ahi waxay noqotay qof hadda hal sano iyo ka badan aan joogeynin. marka instabilitygaas iyo deganaansha la-aanta nidaamka xukuumiga ah ee dowladda federaalka ayaa wuxuu keenayaa isbedbedelkaas joogtada ah. dabcan heshiis kastoo la gelayo oo dowladda federaalka iyo puntland wada gelayaana waa inuu jiraa heshiis ka horeeyey oo uu rifeergaranayo oo uu leeyahay waxaana hore loo galay. marka kan dambe la gelayahay kii hore unbuu ta'kiidaya. mideeda kale waxaa muuqata dowladda xamar qaabka hadda ay u shaqayso ama hore ugu shaqayn jirtay kasho badanba, iyadoo laga yaaba inaysan xumaanba ka ahayn iyo heshiiskii ha hirgelinina ama aysan baar marayninba, oo xataa laga yaaba niyad ahaanba inay tahay inay fuliyaan, ayaa nidaamka dowliga ee xamarka jiraahay qaabka uu yahay iyo sida u shaqeeyahay waxaysanba fursad bashiinaynba heshiisba in la fuliyo oo wixii lagu wada hadlay saahid in loo fuliyo. laakiin way ku khasban yihiin cidda heshiis gashaahi si kalsoonidii iyo credibilitygii iyo is-aaminaadii si ay u timaado. waa waajib weeye in qololba wixii lagu ogaa ay qeybteedii hirgeliso.